haddii aad iminka jaamacad bilaabayso amaba aad garanayso qof bilaabaya jaamacad taladani waa mid aad muhiim kugu ah waxay noo bilaabmay sanad dugsiyeedkii cusub ee 2022 waa marxalad waxbarasho oo arday fara badan oo soo dhameystay dugsiyada ay iskugu diyaarinayaan jaamacadda waa waajib in arday kasta uu ogaado in heerka jaamacaddu ay aad uga duwan tahay waxbarashadii dugsiyada waxa waajib in arday kasta uu ogaado in heerka jaamacaddu aad uga duwan tahay waxbarashadii dugsiga sare waxa si ku qasbayay oo arrimahaaga oo dhan maamulayay waalidka ama ciddii mas'uulka ka ahayd macallimiintu qudhoodana si adag ay kugu xisaabtamayeen oo waajibaadka waxbarasho iyo imaanshiyaha dugsiga si dhow ay ula socdeen jaamacaddu laakiin sidaas aad ay uga duwan tahay waxaad markii ugu horeysay si buuxda mas'uul uga noqonaysaa waxbarashadaada iyo xitaa naftaada saacadda tagayso waxaad baranayso halka aad doonayso inaad gaadho waxbarashada mihnada iyo xirfadda aad naftaada la jeceshahay yoolka adiga ayaa jaangoonaya waa mas'uuliyad laba af leh oo haddii aad si sax ah u maarayso guul bilowgeed ku noqonaysaa haddii aad ka halowdana mustaqbal madow kugu hagaysa haddii aad tahay arday marxaladan xasaasiga ah hadda bilaabaya haddii aad waalid u tahay arday bilaabaya iyo haddii aad meel un tala ka gaarsiin karto ardayda marxaladan galaysa muuqaalkani waa mid aad muhiim kugu ah fadlan gaarsii asxaab fara badan oo iminka bilaabaysa jaamacado share garee haddii aad nagu cusub tahayna follow dhe oo nagu soo biir haddii aad dhanka YouTube nagala socotana subscribe tahay laawin semesterka koobaad ama termka koobaad seeska iska adkay waxay xeeldheerayaasha waxbarashada iyo barbaarinta aaminsan yihiin in termka koobaad ee jaamacaddu yahay seeska ay qaybaha dambe oo dhamme ay ku dul dhismayaan bal waxaad ka warrantaa haddii aad guri dhisanayso waxa waqti badan la geliyaa oo aad loo adkeeyaa in la dhiso sees adag oo run ahaantii hadhowta suurtagal ka dhigaya in gurigoo dhammi ku dul istaago sidaas la mid ah qaybta koobaad ama semesterka koobaad waa seeska waxbarashadaadoo dhammi ay ka farcami doonto iska adkay seeskaas seeskan wuxuu noqon doonaa kan qaybaha dambe ay ku dul dhismayaan waxbarashadaada mar kale natiijada aad gaadho imtixaanka guud ee termka koobaad ayaa jaangoonaysa takhasuska aad mustaqbalkaaga guul ka samayn karto ku dadaal in semesterka koobaad ama termka koobaad aad geliso dadaal aad u weyn sidoo kalena dhisto sees adag oo hubaashii wax weyn noloshaada ka bedela wax isbar jaamacad baan bilaabay macnaha koobaad ee leedahay waa inaad ka soo baxday xilligii qalinka iyo hoggaanka waxbarashada lagugu hayay hadda kadibna tilmaam uu macallinku ku siin doono balse adiga ay ku taala hawshan miisaankeedu lagaana rabaa inaad wax isbarto ha sugin in macallinku wax kasta ku baro inuu macallinku mar kasta wax kuu tilmaamo inaad mar kasta macallinku noqdo qofka ku hagaya laakiin badiba adiga ayaa laga rabaa inaad ishagto inaad wax isbarto inaad dadaasho inaad adigu hoggaanka naftaada u qabato ku dadaal sidii aad u noqon lahayd qof naftiisa ku tirsanaan kara xitaa maadooyinka qaar iskugu bari kara macallin la'aan haddii aanad sidaa samayn karaynin micno weyn samayn mayso jaamacadda aad dhiganayso afka ingiriisida barashada iyo ku xeeldheeraanta afka hooyo waa muhiim waana sababta ay waxbarashada dugsiga hoose ugu fiican tahay inaad afkaaga hooyo ku dhigato waayo afkaaga hooyo markaad taqaan ayaad luqado kalena u gudbi kartaa adduunka maanta waxaa ka jirta isdhexgal bulsho duniduna waxay ku socotaa in isku afgarato luqadda ingiriisida mase la socotaa in horumarka sayniska iyo teknolojiyadda ganacsiga iyo dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo guud ahaan dhinacyada nolosha ee maanta la gaadhayba ay gabahaanteedba ku diyaarsan yahay afka ingiriisida waana sababta uu afka ingiriisigu marba marka ka dambaysa ugu sii soqayo inuu noqdo cilmi gaar ah inaad luqadda ingiriisida barataa waxay muhiim u tahay inaad waxyaabo fara badan oo ku saabsan mihnada aad baranayso aad heer ka gaadho ku dadaal inaad muhiimad xoog ah siiso barashada afka ingiriisida adkaysi u yeelo culayska waxbarashada jaamacaddu waxay ka culays badan tahay tii dugsiga cilmi baaris tixraacyo buugdaalacasho qoraallo iyo waajibaad kala duwan ayaa mar kasta ku yaala marba marka ka dambaysa semesterka ka dambeeya waxaa sii badanaya culaysyada lagu saarayo waxaana mar kasta lagu dirayaa waajibaad guri waxaana lagu dirayaa shaqooyin fara badan oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo weligaa shaqada ay jaamacaddu kaa sugayso dib ha u dhigan xitaa haddii aad waqti badan aad haysato
inaad u bareedho nasasho hor leh oo khatar keeni kartaa waxa ka fiican culays shaqo hor leh oo nasasho ku dambayso. daalka badan ee ardayda nafsad ahaan ay dareemayaan xilliga dugsiga ayaa marka uu dhammeeyo waxa uu keeni karaa inuu jaamacadda u arko waqti nasasho iyo firaaqo badan oo helayo. laakiin waa fikir aan sax ahayn. marka laga tago waajibaadka culayska ee jaamacadda waxaa muhiim ah inaad naftaada u sheegto in marxaladdan aad maraysaa ay tahay tii ugu habbooneed aad mustaqbalkaaga waxbarasho ku sahaysay. waxayna u badan tahay inay tahay waqtigii ugu muhiimsanaa ee aad mihnadaada mustaqbalka ku toosin kari lahayd. ha ku ekaan waxbarashada jaamacadda ee ku dadaal inaad naftaada u diyaarso aqoon kororsi diyaargarow ka baxsan jaamacadda. nolosha casriga ee tiknoolajiyadda hogaaminayso waxay wax badan fududeysay. adigoo waxbarashada jaamacadda wada ayaad internetka aqoon ka korsan kartaa ama koorsooyin dheeraad aad ka qaadan kartaa kulliyad ama xarumo waxbarasho oo kale oo adduunyada daafaheeda kala duwan ku kala yaala. adduunyada waxaa dhacda in bilaha jaamacadda fasaxay tahay oo ardaygu qaato waxbarasho kale. maxaa diidaya inaad qaadato koorso 3 bilood ah oo farsamada gacanta ah? maxaa diidaya inaad qaadato koorsooyin kale oo ka baxsan mihnadaadan aad ka barato jaamacadda adigoo ka baranaya saaxiib ama walaal? waxaan kugula talin lahaa kaliya inaadan ku ekaanin jaamacadda ee aad isku daydo inaad kor u qaaddo xirfadahaaga aad leedahay. tani waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof aad loogu baahi qabo xilliga aad soo shaqo tagto. waa inaad barato xirfado ka duwan tan aad baratay. waa inaad barato mihnad ka duwan tan aad jaamacadda ku barato. koorsooyin kala duwan waxay kaa caawinaysaa inaad yeelato xirfado ka duwan kuwa aad hore u taqaanay. waxay kor u qaadaysaa maalinka aad soo shaqo tagto inaad si wacan u taqaano waxaad ku wacan tahay iyo waxa kale. waxay tani kor u qaadaysaa awooddaadii iyo kartidaadii aad ku shaqo tagi lahayd. si muuqata uga qayb qaado arrimaha isxilqaanka bulshada dhexdeeda sida dad la caawinayo, gacan qabashada howlaha guud ee gurmadka iyo xaaladaha degdega ah, qaaran ururinta, naadiyada dhalinyarada, aqoon kororsiga iyo iskaashiga guud ahaanteedba. tani waxay korinaysaa wacyigaaga bulsho, xiriirka bulsho aad la leedahay, waxayna kaa caawinaysaa inaad barato kumanaan qof oo run ahaantii noloshaada fursado badan kuu keeni kara. inaad marxalad jaamacadeed soo gaadhay waxay ka dhigan tahay inaad soo gaadhay kadinka nolosha adduun waaya badan. waa halka aad ka bilaabi karto xidhiidhadaada mustaqbalka ku anfici kara. ma ahan xidhiidhada aad la yeelanayso ardayda oo keliya, balse waxaa muhiim ah inaad ku dadaasho sidaad xiriir kala duwan ula yeelan lahayd cid kastoo khibrad ahaan ku dhaanta, hogaamin ama indheergarad aad ku og tahay ama lagugu sheegay. waxaad ka heli waayo aragnimo iyo aqoon kuu korodha iyo sidoo kale fursado kala duwan oo aad agtooda ka hesho amaba aad ka faa'iidaysato. mar kasta ku dadaal inaad barato shakhsiyad waxtar leh oo laga yaabo in noloshaada faa'iido u leeyihiin. tusaale ahaan ka qaybgal munaasabadaha doodaha, falanqaynta, khudbadaha cilmiga ah iyo dadka muhiimka ahi imaanayaan si aad fursado uga hesho iyo inaad dad fiican ka barato. ha yaraysanin qodobkani waa kan ugu muhiimsan ee noloshaada dhan bedeli kara. inaad saaxiib la noqoto qof aqoon ahaan iyo khibrad ahaan ku dhaama kadibna aad fursad weyn ka hesho noloshaada ah run ahaantii isbeddel weyn ayay keeni kartaa. saaxiib iyo run ahaantii qodobadani waxay hayeen kuwii ugu muhiimsanaa haddii aad maanta bilaabayso jaamacad oo ku anfici kara. waxaan inoo rajaynayaa inay nolosha guulo waaweyn soo hoyno. nasiib wacan ayaan idiin rajaynayaa iyo inaad heshaan mihnaddii ugu wacnayd ee aad noloshiina ku beddeli lahaydeen.